waxaa la amray maamulada waxbarashada ee gobolada iyo degmooyinka ardaydaasi ay u qaxday haba yaraatee inaan lagu xidhin wax shuruud ah dhinaca suuqa Soomaaliland ka geysanaysa lascaanood ma jiraan macallimiintii ardaydii qaybaha tirakoobtana wax ka soo gaadhay hadday noqon lahayd shacabka reer Puntland oo dhiig iyo dhalasho iyo wax kasta ay ka dhaxeeyaan Roorsol runtii waxay ugu gurmadeen dadkaas si aan innaba caadi ahayn oo aan la qiyaasi karin ma jiraa tirakoob ardayda colaad saameysay aad ka sameyseen dadkii wasaaradda waxbarashada waxaan aragnay fara badan oo dhibaatadii iyo saameyntii uu dagaalku ku yeeshay xataa maskax ahaan iyo qalbi ahaan aan ka baqayno xataa inay iskuulada dib u aadi waayaan macnaha dhaawaca iyo dhibaatada loo geystay ardaydaas iyo dhallaankaas dhibka uu u geystay dagaalkaasi waxaan weligood ka hadhi karin xataa inay noqoto waahay anigu waxaan isleeyahay ka shakhsi ahaan annaga waajibna saaran bay ahayd inaan staan yeelno waajib saaran dawlad iyo shacab reer Puntland dadkan waa dadkoodii waa ummadoodii in aan maaragtay la damqanno inaan la harjadno wax alla wixii aan u qaban karno aan la qabanno runtii waajibna saaran bay ahayd anagu ka dawlad ahaan iyo shacab ahaan Puntland waxaan isleeyahay sidii ugu wanaagsanayd aan u maamuli karnay baan u maamulnay taariikhdana sheegi doonta insha Allah waa ka kabanaysaan magaaladiina waa dhismi doontaa dadku dhulkooda ay ku noqon doonaan iyaga oo xor ah dhammaan ardaydaas sool ka soo barakacday inaanay haba yaraatee dareemin in ay joogaan guryo kale laakiinse ay joogaan guryahoodii ay joogaan dalkoodii ay joogaan gurigii ay ka yimaadeen iyo kan ay joogaan ee Puntland inay dareemaan inuu isugu mid yahay intaas baan isleeyahay waa ku filan bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wanaagsan daawadayaal waxaa noo suurto gashay in aanu program ka qabanno wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland mudane Cabdilaahi Maxamed Xasan oo aan ugu horeyntii mudane markii hore ku soo dhawow barnaamijka waa dhaw aad iyo aad baad mahadsan tahay wasiirku muddooyinkii ugu dambeeyay dhinaca waxbarashada wax weyn ayuu ka qabtay 4 sano ugu dambeysay gaar ahaan deegaanada gobolka Sool markii ka dhaceen dagaaladu ayuu arday badan oo halkan ku soo qaxday deegaanada dawladda Puntland iyo Garowe iyo tuulooyinka iyo degmooyinka kala duwan ee gobolka Sool iyo Nugaal iyo Bariba wax weyn u qabtay mudane wasiir waxaad nooga sheegtaa ardaydii soo qaxday gobolka Sool wax ka dhigan jirtay qaabkii aad u habeyseen imtixaanadii baa taagan foonfoorka waxyaalihii aad isugu dubrideen bal qaabkaas waayahay aad iyo aad baa mahadsan tahay waxa aan marka ugu horeysa in aan ku bilaabo runtii ay tahay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood tacaddigii iyo dhibaatadii ay ka dhacday ee shacab weynihii magaalada deganaa oo lagu qiyaaso ilaa 250,000 oo qof maamulka Muuse Biixi uu ku qaxiyay dadkaas oo uu ka dhigay wuxuu laayo iyo wuxuu xasuuqo iyo wuxuu barakiciyo oo ilaa haddana ay madaafiicdii iyo dagaalkii weli magaaladaas lagu wada runtii ka wasiir ahaan iyo ka wasaaradda waxbarasho ahaan iyo ka Soomaali ahaan iyo islaamnimo ahaanba runtii aad iyo aad baan uga xunnahay dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee guryahoodii lagu duminayo la xasuuqayo la barakicinayo wax bini aadanka aqligiisu oo qaadan karo runtii ma aha dadkaas waxaa ka mid ahaa arday lagu qiyaasay 60,000 oo arday oo magaaladaas ka baranayay wax oo isugu jiray heerarka kala duwan ee waxbarashada hoose ta dhexe ta sare macaahidda islaamka iyo guud ahaan systemkii waxbarasho ee magaaladaas ka jiray inuu burburay sida magaaladu ay u burburtay inay iyaduna u burburtay ardaydaas tirada inta leeg anagu ka wasaaradda waxbarasho ahaan Puntland waxa aan kabjar garaynay ama aan xogtooda ururinay arday ilaa 230,000 oo arday gaadhaysa oo u soo qaxay deegaamada Puntland in badan oo ardaydaas ka mid ah waxa aanu ama guud ahaanba ardayda Puntland ardayda soo qaxday ee ka soo qaxday magaalada Laascaanood gaar ahaan iyo meelaha ku dhowdhowba dawladda Puntland waxa ay damaanad qaaday waxbarashadooda guud ahaan wasaaradda waxay amar ku bixisay in dhammaan ardaydaasi ay si furan oo kal iyo laab ah loogu soo dhaweeyo iskuulada kala duwan ee ka furan guud ahaan deegaamada Puntland
in ay ardaydaasi ku biiri karaan waxbarashada dabcanna in badani way ku biirtay waxaa la amray maamulada waxbarashada ee gobolada iyo degmooyinka ardaydaasi ay u qaxday haba yaraatee inaan lagu xidhin wax shuruuda inay ardaydaasi iskuullada ku biiraan dabcan meelo badanna meeriyaha waa laga arkay oo markhaanti baa loo haystaa mudane aan kaa dhex galo culayska badan ee aad dhabarka u ridatay wasaaradda waxbarashada iyo xukuumadda dowladda Puntland ay dhabarka u ridatay ma jiraan cid culayska idinla qaybsatay oo wax idin ka geysatay ilaa iyo hadda culayskaas intaa la eg dowladda Puntland oo kaliya ayaa dhabarka u ridatay cid hay'ado wax naga caawiyo ilaa hadda ma jiraan hadday jiraan waa wax yar oo aad u kooban oo runtii oo ku kooban incentive yar oo macallimiinta qayb kamida aanu hadda processkii u wadno oo wax yar oo kooban oo labada bilood oo iskuulka ka harsan ah macallimiinta soo qaxay magaalooyinka u qaxay ee wax baraya ardaydii soo qaxday wax yar inaan u raadino laakiin waxaan isleeyahay guusha ugu weyn waxa weeyaan mar haddii ardaydii wasaaraddu ay ballan qaaday waxbarashadooda inaanay wax qarash haba yaraatee ku xidhnayn inaanan u baahan doonin in ama hay'ad naga caawiso ama cid kale ay naga caawiso laakiin shacabka Puntland oo wasaaradooda waxbarashada kaashanaya ayaa dhabarka u ritay wixii qarash iyo hawl halka ka soo baxay dhinaca suuqa Soomaaliland ka geysanaysa lascaanood ma jiraan macallimiintii ardaydii qaybaha tira koobtana wax ka soo gaareen waa jiraan 32,000 oo arday ayaanu diiwaan gelinay in badani wali iskuulada kuma soo birin wali dadkaas trauma dhalinyaradaas iyo ardaydaas dhibaatadii magaalada kaga dhacday ayaa maskaxdooda ka guuxaysa 32,000 baa soo gaaray deegaamada Puntland oo ardaydii kamida iyo macallimiin tira deegaaraysa kumaanku ku dhawaa soo baxday iyana soo baxay magaalada tan aynu joogno Garowe waxa iskuulada magaalada ku yaala oo dhan waxa ku biiray ardaydii waxaan oran karaa ilaa Boosaaso ilaa iyo Gaalkacyo ilaa Sanaag ilaa Cayn dhammaan ardaydii ka soo barakacday magaalada Laascaanood inay maanta joogaan oo iskuulada ku biireen oo macallimiintoodii ay joogaan waxa iyana guul ah oo aan isleeyahay insha Allah aan rabnaa inaan ku guuleysano xilliga kan waa xilligii la qaadi jiray imtixaanka shahaadiga ah oo ardayda fasalka 12aad iyo fasalka 8aad wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowladda Puntland waxay damaanad qaaday dhammaan ardayda 8aadka ah iyo 12aadka ee ka soo qaxay gobolka Sool in ay imtixaanka ku galaan gobolada kala duwan ee Puntland iyagoo aan wax qarasha iyo wax dhaqaale ah la weydiinayn imtixaankaas imtixaan iyaga u gaar ah weeye waxaana dejinaya macallimiintoodii wax u dhigi jirtay hadda ayay wasaaradda waxbarashada fadhiyaan oo imtixaankii u diyaarinayaan labada grade macnaha 8aadka iyo 12aadka ay u diyaarinayaan xarumihii gobolka Sool ee dowladda Puntland gacanta ku hayso sida deegaanadan gobolka Sool ka tirsan ma jiraan iyagu xarumaad u dhisteen ama waa hayna xarumihii faraha badnaa intaanay dhibaatada iyo dagaalku aanu ka dhicin halka kan aanu gacanta ku haynay magaalada Laascaanood baana joogin laakiin inta kale ee gobolka Sool haday barigiisa ahaan lahayd iyo haday koonfurtiisa ahaan lahayd iyo haday ilaa iyo Cayn iyo galbeedka inta xigta ahaan lahayd intaas oo dhan awalba gacanta ku haynay sidii baanu gacanta ugu haynaa sidii ba iskuuladii xataa magaalooyinka ku jiray dadkiiba xataa ku qaxay waxaan dareemi karnaa inaad ka war haysaan magaalada Kalabayd oo kale magaalada Woodward oo kale magaalada Xudun oo kale iskuuladii shacabkii baa degay waxaanu marka maadaama shacabka ay soo qaxeen oo aanay dibad joogi karin oo aanay magaalooyinku qaadi karin iskuuladii ay degeen xataa waxaanu ku khasabnay magaaladii in aanu dharaahno bal hal iskuul ha loo baneeyo anagoo xoog saarayna ardayda maaragtay qalin jabinaysa 8aadka iyo 12aadka marka iskuuladaas intii aan awalba xukumi jiray maamuli jirnay sidii baan u maamulaynaa sidii ardayda yadii u joogtaa sidii baa macallimiinta yadii u joogtaa kuwanina dulsaar iyo culays bay ku noqdeen baayac mushtarka iyo ganacsatada reer Puntland iyo qurbo joogta ma u bandhigteen bal inay qayb idin kala qaataan dhinacan waxbarashada gobolka lagu soo qaxay iyo dadkan ka soo barakacay gobolka Sool iyo ardaydan miisaanka weyn ku baxayo aad iyo aad cid aan ogeyn culayska Puntland ay wajahday ee dhabarka saaratay haday ahayd mid waxbarasho ahaan lahayd haday mid caafimaad ahaan lahayd oo aynu ka war hayno dhammaan cusbitaaladii gaarka ah xataa inay isu bedeleen kuwa maartay public kiliinikiyadii jiray oo dhan dhamaantood dhaawicii reer Sool baa ka buuxa marka culayska faraha badan ku dhacay shacabka Puntland iyo dowladda Puntland dabcan cid kasta way ogtahay haday ahayd hay'adaha caalamiga iyo international community-ga haddii ay ahaan lahayd international organizations ka caawiya guud ahaan dadka Soomaaliyeed in caawinada la daba taagan haday noqon lahayd shacabka reer Puntland
oo dhiig iyo dhalasho iyo wax kasta ay ka dhaxeeyaan reer Sool runtii waxay ugu gurmadeen dadkaas si aan innaba caadi ahayn oo aan la qiyaasi karin ma jira tirakoob ardayda colaadu saameysay aad ka samayseen dadkii wasaaradda waxbarashada waa ka sameynay markii horena waa ka jawaabay su'aashaas 32,000 oo arday baan tirakoobkaas aan sameynay laakiin waxaan qiyaasayaa 30,000 oo arday in ka badan magaaladaas inay ka soo barakacday qaybo kamid ah aanay wali iskuulada ku biirin oo wali maaragtay arday waxaan aragnay fara badan oo dhibaatadii iyo saameyntii uu dagaalku ku yeeshay xataa maskax ahaan iyo qalbi ahaan aan ka baqayno xataa inay iskuulada dib u aadi waayaan macnaha dhaawaca iyo dhibaatada loo geystay ardaydaas iyo dhallaankaas dhibka uu u geystay dagaalkaasi waxaan weligood ka hadhi karin xataa inay noqoto baan runtii ka baqaynaa marka tirakoobka iyagu meel fiican buu maray international community-na waa la wadaagnay hay'adaha nagala shaqeeya waxbarashada dhammaantood waa la wadaagnay xataa markii aan Nairobi tagnay bari dhaweyto wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda Puntland iyo 6-7 wasiir oo kamid ah dowladda Puntland waxyaabay aan kala hadlaynay international community-ga waxay ahayd waxa ugu weyn waxay ahayd dhibaatada ku dhacday dadka reer Sool sidii wax looga qaban lahaa waxbarashada ku jirtay caafimaadka ku jirtay barakaca ku jiray iyo dadkaas gobolkaas ka soo qaxay guud ahaan sidii wax loogu qaban lahaa ma jira mudane wasiir manhajka wasaaraddu u diyaarisay ardaydaas mise waa isku manhaj markooda hore ma horta manhajka Puntland manhaj ka gooniya buu ahaa oo dadka Soomaaliland قصة بلاد بوا وحنا قرنا يبقى دتك اللي بري جرين وحبك جرين تاريخ صوب لامس كوبي سجاشن كي أيا صلّي وأهيد أنا جو منهج كاس شغلنا كمان لهين المنهج اعتمادي جرين المنهج كبونتلاند ده منهج لا يقانو لواتن يصدق سنة اللي سيء ورنتي الديارسن منهج ما دام أرضيله أي كلام منهج هيد وحن ويرني معلمين تودي معلمين تي حاجة وحكو بري جرتي مركز طبعا وحي أي بري جرين بيربان هذا ما دام أنا منهج كيا قديان أنا امتحان كوقصة ميان امتحان كان أساسا لوجو ديارنا يا مركز منهج كودي يوحي صوبرته وحي وحكوبا وليبه أو لقى صاري wixii aan u cuntameyn ilaa waxa jira manhajka wax badan oo aan u cuntameyn dadka oo khaladaad oo far badan oo ka buuxay oo haday ahaan lahayd history-ga iyo taariikhda hadii ay ahaan lahayd civic education-ka wax la yiraahdo ama wadaniyada wax la yiraahdo hadii ay ahaan lahayd maaragtay habdhaqanka dawladnimada governance-ka iyo waxyaabaha lagu barto waxa soo dhan waa ka tuuray marka waxyaabihii caadiga ahaa ee commonka internationally la barto oo sida science-ka iyo xisaabta iyo history-ga guud ee adduunka iyo ka Soomaaliya weey anagu kan wax kaga qaadanaa dabcan waa wixii la soo baray aad bayna maaragtay ardaydu u soo dhaweeyeen macallimiintu u soo dhaweeyeen waxaan u diyaarinaynaa marka madana wasiir waxa dhawaan laga yaabaa inuu soo galo imtixaanaadkii final examination-kii form 4-kii iyo 8-da Soomaaliya marka deegaanada aad kaga qaadansan gobolka Sool dadkii qaxay ما تقولوا وكلية ما دمان سجالك قبل بنتلان ماشي صورة قل أي شوغان بيكون قليا هدي حدن شوغان حدن بيكون قليا هدي كلبرد شوغان كلبرد بيكون قليا هدي وود شوغان وود بيكون قليا أنت قروا شوغ تقروا بيكون قليا أرضي وليبا ماشي وكل شوغان يبقى امتحان كسلوك دياري من لوقون دي مركب أرضي دي يمليه قليا ولوقون دي هذا وحكم مكان فيلد كيبا لأري سيل أرضي تصور هذا لوقا سوق قاضو الله صوت دياريو ayaa lagu maqan yahay hadeerto oo tiimamkii aan u dirnay gobolka Sool dhinaciisa bariga ilaa iyo waxay soconayaan tiimka halka aan u dirnay ilaa iyo kulaal bay soconayaan ilaa kulaal bay soconayaan iyo awrbogays iyo xudun iyo taleex inta ka dhaxaysa ilaa iyo kalabayd iyo karin karfood iyo karin dabeyl weyn iyo intii dadku ay tageen ba dadkaas laga soo qoraya iyo guud ahaan meelaha ay ku qaxeen oo dhan ba laga soo qoraya oo laga diyaarinaya ardaydii la soo diyaarinaya ardayda colaaduhu saameeyeen ma isleedahay nasiib wanaag ee dawladda Puntland wax weyn baa gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo wasiirka u tahay wax weyn bay u qabatay hadayna heli lahayn waxay noqon lahayn arday ka dhacday sad waragta arintaada wallahi anigu waxaan isleeyahay ka shakhsi ahaan annaga waajibna saaran bay ahayd inaan saan yeelo waajib saaran dawlad iyo shacab reer Puntland dadkan waa dadkoodii waa ummadoodii in aan maaragtay la damqano inaan la harjadno wax alla wixii aan u qaban karno aan la qabanno runtii waajibna saaran bay ahayd marka waxaan isleeyahay de ma ogtahay qofka waxa loo qabanayo baa sheegi kara ma ogtahay waxa loo qabanayo inay wax anfac yihiin iyaga laakiin anagu ka dawlad ahaan iyo shacab ahaan Puntland ba waxaan isleeyahay sidii ugu wanaagsaneyd aan u maamuli karnay baan u maamulnay taariikhdana sheegi doonta insha Allah macallimiinta gobolka Sool ardayda wax ka bari jiray deegaanada colaadaha iyo xasuuqa Soomaaliland saameeyaan tirakoom ku sameeyay macallimiintu dhowr kun oo macallin weeye
dhaqaalaha ayaa bixin mushaharka markaa wixii aan awoodnaan anagu siinayna labada bilood hadda iskuulka ka hadsan wax meel kasta iyo geed kasta iyo guri kasta inaanu macallimiinta u garaacno oo wixii aan u heli karno aanu siino baan isku daynaa hadda ilaa 200 oo macallin oo ku soo maaragtay waxbarashada Puntland meelaha kan ku biiray ayaanu incentive 2 bilood ama gunno waxa la yiraahdo aan u raadinayna marka ku talagalka iyaguna waxa weeyaan labada bilood ee iskuul yarka ka haray wixii aan qaban karno xagga macallimiinta xagga maamulayaashii xagga ardaydii xagga hatta waalidiinta laftarkooda oo duruufaha faraha badan ay ku xiran yihiin shacabka dawladda ahaanba inaanu isugu tagno marka shacabka Puntland oo dawladooda ay hogaaminayso waxa rabaa fariin inaan gaarsiiyo ugu dambeyntii madaxweyne wasiir maxaa fariin oo gaarsiinaysa shacabka reer Puntland iyo kii Sool ka soo barakacay guud ahaanba dalka waxaan leeyahay reer Sool mid baan leeyahay waxaan leeyahay horta waad guulaysateen adkaysta guushiina in yar baa ka dhiman insha Allah waa guulaysanaysaan dhibka iyo qaxarka iyo barakaca iyo dagaalka iyo burburka laascaanood saameeyayna wax cusub maaha magaalooyin kale oo Soomaaliyeed hore buu soo saameeyay waa ka kabanaysaan magaaladiina waa dhismi doontaa dadku dhulkooda ay ku noqon doonaan iyaga oo xor ah iyaga oo maaragtay u xor ah maamulkooda iyo nidaamkooda iyo systemkooda dawliga ah iyo Soomaalinimadooda ay halka ku noqon doonaan shacabka reer Puntlandna waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sidii aad reer Sool u soo dhaweyseen shacab iyo dawladba inta yar ee hawshaas iyo culayskaas uu jirana dadaalkii iyo shaqadii aad hayseen si laban laaba si boqol jibaara sida soo kale ayaan waxaan leeyahay bahda waxbarashada isugu jirta wasaaradda waxbarashada iyo inta ay xukunto oo dhanna dhammaan ardaydaas Sool ka soo barakacday inaanay haba yaraatee dareemin in ay joogaan guryo kale laakiinse ay joogaan guryahoodii ay joogaan dalkoodii ay joogaan guriga ay ka yimaadeen iyo kan ay joogaan ee Puntland inay dareemaan inuu isugu mid yahay intaas baan isleeyahay waa ku filan tahay waa tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland mudane Cabdilaahi Maxamed Xasan mudan aad baad mahadsantahay thank you very much waa mahadsantahay aad baan idinkaga mahadcelinayaa inaad axwaasha gobolkaas iyo dhibaatada dadka haysata aad dareenkiisa aad soo gudbinaysaan waa mahadsantahay